waa mandaqad ballaaran oo ku daboolan yahay saddex geesoodka Bermuda taasoo ku fadhida masaafo aad ballaaran waxaana la aaminsan yahay in sahamiyihii weynaa ee Christopher Columbus uu gooyay oo ka gudbay mandaqadaasi saddex geesoodka ee koonfur bari kaga toosan gobolka Florida ee dalka Mareykanka isagoo Columbus warbixinihii xilliga ka bixiyay ay ka mid ahayd in mandaqadaasi ay kormarayeen dhagxaan ololeysa hase yeeshee magaca hadda loo yaqaan ee Bermuda waxa uu bixiyay abwaan u dhashay dalka Mareykanka isagoo magaca u bixiyay sanadkii 1960 markii la waayay 5 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo noocoodu ahaa F-16 iyo 14 askari oo saarnaa kadib markii diyaaradahaasi ay dul mareen saddex xagalkaasi laakiin waxyaabihii ugu waaweynaa ee saddex xagalka Bermuda laqay waxa ka mid ahaa markab kuwa xamuulka oo ay leeyihiin oo ay lahaayeen Mareykanku sanadkii 1918 markabkaas oo sidee xamuul badeecada oo sidii loo joogay la waayay isagoo dhererkiisu ahaa 542 fuud ama cagood waxaana saarnaa ilaa 300 oo nin kuwaas oo iyaguna ku qaraqmay mandaqadaasi isugeyn waxa la aaminsan in ilaa 1,000 qof lagu waayay oo uu laqay saddex geesoodka Bermuda muddadii 100 sanadood ahayd ee u dambeysay halka sidoo kalena celcelis ahaan ay noqonayaan tirada diyaaradaha lagu waayay 4 diyaaradood sanad walba iyo sidoo kale 20 duuyood ama markab sanad kasta iyadoo deegaanka xeebta ka tirsan gobolka Florida ee dalka Mareykanka ay dadka qaarkii ka sheekeeyeen inay bartamihii qarnigii hore mararka qaarkood ku arki jireen halkaasi makhluuqaad sida dadka oo kala ah oo hawada sare duulaya bilowgii 70-yadii ee qarnigeena dhaafayna Mr Charles Berlitz ayaa buug ka qoray saddex geesoodka Bermuda waxaana uu buugga ku daabacay ilaa 20 milyan oo koobi kuwaas oo ku kala daabacay ilaa 30 luqadood oo kala duwan ra'yi ururin ay shabakada wararka queen.com ka samaysay daafaha caalamka ayaa 140% dadkii su'aalaha la weydiiyay waxay aaminsan yihiin in saddex geesoodka Bermuda uu yahay meel khatar ah iyadoo sawirro lagu qaaday dayax gacmeedka sanadkan 2016 lagu ogaaday foolkaanayaal dab iyo holac tuuraya oo ka qarxaya gudaha saddex geesoodka Bermuda saddex geesoodka oo joogiisa hoose ka badan yahay 45 milyan oo fuud